gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Abdiraxmaan Ciro oo ku sugan dalka Sweden ayaa ka hadlay dagaalka ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ku dhexmaraya deegaanka Tukaraq. Dr. Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Abdiraxmaan Ciro oo arrimahaas ka hadlay hadaladiisa waxa kamid ahaa aanu fursad u helay maanta anagu joognay Sweden inaan la kulanno wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sweden sida Faaduma sheegtay iyo diinaariba waxaanu kala kulannay soo dhaweyn ballaaran waxaanu kala hadalnay guud ahaan arrimaha Soomaaliland ay ugu horeyso arrinta hadda taagan ee duufaanada iyo daadadka ka dhacay Soomaaliland iyo khasaarihi ay geysteen iyo inay gacan ka geystaan iyo inay guud ahaanba gacan ka geystaan horumarka Soomaaliland iyo inay fursado shaqo u abuuraan dhalinyarada gaar ahaan Soomaaliland waxaanu kala hadalnay arrimaha doorashooyinka soo socda iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland iyo sida gacan uga geysanayaan iyo sida loo hagaajinayo nidaamka doorasho ee Soomaaliland waxaanu kala hadalnay in Soomaaliland iyo xaaladda maanta nabadgelyo ay ku sugan tahay oo aanu u xaqiijinay in Soomaaliland ay ku sugan tahay xuduudadeedii meesha maanta lagu dagaalamayo ee Tukaraqna ay ka mid tahay Soomaaliland aan xitaa ahayn meel xuduudka Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhaxeeya aan ahayn ama Puntland iyo Soomaaliland ahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay wixii wadalkeeda gudaheeda iyada ka mas'uula ammaanka shacbigeeda iyo nabadgelyada qarankeeda waxaan xaq u leedahay in istifaacdo laakiin waxaan ku boorinay in arrinta ay si wanaagsan u daraaseeyaan oo ay fahmaan dhibaatadu halkii ka jirto waxaanu u sheegnay in aanan anagu dagaal aanan durbaan u tumaynin laakiin aan rabno in nabad lagu wada noolaado laakiin wixii xadgudub aanan ogolaanaynin